kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka haga meediya qodobada aad ku daawan doontaan waxa ka mid noqonaya madaxweyne Madoobe oo sheegay inuu ku badbaaday xarig ay u geysay rabeen ciidamada Itoobiyaana iyo digniin culus oo la soo saaray dagaal faraha la isaga gubto maanta ka dhacay deegaan dhacduleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari wararkii ugu dambeeyay ee Boosaasi madaxweyne Dani oo qaada talaabo uu kaga sii dari kara xiisada ka taagan Puntland shir qarsoodi oo Muqdisho ku dhaxmaray Sheekh Shariif iyo taliyaha nabadgelyada Fahad Yaasiin iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo balantii looga baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya amar culus dul dhigtay hay'adaha caalamiga oo ka howlgal gudaha Soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo jawaab degdeg ah bixiyay cambaareen dusha uga tura Kenya howlgal culus oo ka dhan al-shabaab oo looga dhawaaqay deegaana ka tirsan maamulka Galmudug iyo maxkamadda ICC oo ogolaatay in la qaado xuquuqa baaritaanka ku aadan muslimiinta Myanmar fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii oo fidsan madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe oo kulan degdeg ah maanta la qaatay golihiisa wasiirada ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qorshe dagaal oo ka socda deegaana ka tirsan maamulka oo dhaqaaqyo ciidan kuwaas oo ay wadaan ciidamada Itoobiya madaxweyne Madoobe ayaa sheegay in gudaha magaalada Kismaayo ay ka qorsheynayaan ciidamada Itoobiyaanka howlgal ay ku doonayaan in madaxweyne Madoobe ay ku afduubaan oo ay ku geeyaan magaalada Muqdisho sida wararku sheegayaan madaxweynaha maamulka Jubbaland ayaa ila xog ogaala waxay sheegayaan in xubnaha wasiirada ee ugu fircan maamulkiisa uu kulamo la qaatay isla markaasina uu u baaqay inay feejignaan dheeraad muujiyaan isla markaasina ciidamada Itoobiya ku sugan magaalada Kismaayo deegaanada kale maamulka ay qorsheynayaan inay wadaan ama ay kaxeeyaan xubnaha maamulka ku ugu fircan oo ay geeyaan Muqdisho si loo xiro madaxweyne Madoobe ayaa sheegay in la dejiyo qorshe isaga lagu soo afduubay isla markaasina la doonayo in lagu geeyo magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii uu ka diiday dawladda federaalka Soomaaliya in wada hadal ula galo ama doorashada maamulka ay soo fargeliso hadalka uu dhigay madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo shir jaraa'id ku qabtay mar uu maanta tagay magaalada Ceelwaaq ee gobolka Gado ayaa wuxuu ka digay fargelin uu sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ka wado gobolka Gado isagoo sheegay in dawladda dhexe burburin ku hayso maamulka Jubbaland oo uu tilmaamay ciidamada Itoobiyaana u adeegsanayso si guud wali waxa taagan xiisad siyaasadeed oo u dhaxaysa dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland walina waxa xal loo leeyahay in arrimaha khilaafaadka ee taagan maamulka xal laga gaaro ciidamada Itoobiya ayaa hore waxa loo ogsan yahay in doorashada koonfur galbeed lagu eedeeyay inay soo afduubeen wadaadka Muqtaar Roobo Cali oo Mansuur oo dawladda federaalka ee Soomaaliya xabsi guri ugu ah Muqdisho waxaana madaxda inta badan ay ka cabsi qabaan in sidii Muqtaar Roobo oo kale loo soo xiro sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa feejignaan waxa ay ka qabaan in sida loo shirqoolo oo la sheegay in Itoobiya ay ka dambeysay wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan oo xiran dawladda loo qorsheeyay maamulka in loo xiro madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe ayaa intaas wuxuu ku daray in dhowr jeer hore uu ka badbaaday dhowr isku day oo lagu doonay in lagu afduubo ama lagu qaarijiyo sida wararku sheegayaan isna uu ka sheegay shirka golaha wasiirada maamulkaas oo maanta ku qabtay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose wixii warar ku soo koray daawadayaal waa idin soo gudbin doonaa wararka laga helay deegaanka Afur ee dhacduleedka magaalada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo dagaalyahanada ka tirsan al-shabaab dagaalkan u dhaxeeyay ciidamada Puntland iyo al-shabaabkii weerarka soo qaaday ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Afur waana dagaalkaasi ka dhashay khasaare isugu jir mashiir dhaawac dagaalkan ayaa ka dambeeyay kadib markii al-shabaab weerar gaadma la sheegay inay ku soo qaadeen saldhig ciidamada Puntland ay ku leeyihiin deegaankaas oo haatan laga maqlay rasaas xoog leh oo dhinacyadu isweydaarsanayaan wararku waxay sheegayaan in dagaalka dhaxmar ciidamada Puntland iyo al-shabaab ay ku geeriyoodeen laba ka mid ah ciidamada Puntland saddex kalena ay ku dhaawacmeen saraakiil ka tirsan Puntland ayaa xaqiijiyay in dagaalkan uu socday ku dhawaad saacad isla markaasina dib ay u weeqeen dagaalamayaashii al-shabaab ee weerarka soo qaaday Korneel Maxamuud Maxamed Aarsade ayaa sheegay in laba askari oo ka mid ah ciidamadooda saddex kalena ay ku dhaawacmeen halka labana ay geeriyoodeen sidaasina kaga dhigan tahay in wadarta guud 5 qof ay waxyeelo ka soo gaartay laakiin dhankooda waxa uu sheegay in al-shabaab ay ka dileen 5 dagaalyahano oo weerarka soo qaaday deegaanka Afur ee gobolka Bari ayaa haatan xaaladiisu waxa ay tahay mid degan waxaana ku canta ku haya ciidamada Puntland wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaray deegaanka dagaalku ka dhacay waxay tilmaamayaan in laakiin laga dareemayo xiisad oo uusan amniga deegaanka ku sugneen maadaama shabaabkii weerarka soo qaaday deegaanka meelan ka fogaan ay ku sugan yihiin
xaaladda magaalada Boosaaso ayaa shalay ilaa iyo maanta degan kadib markii maalmo ka hor ciidamo ka tirsan daraawiishta Puntland iyo ciidamo beeleed oo ay la socdaan ciidamo ka tirsan Puntland ay gudaha u galeen magaaladaasi oo dagaal ay kula wareegeen qaybo ka mid ah. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegay in maamulka Puntland ay ciidamo iyo tikniiko fara badan ku daabulayaan gudaha magaalada Boosaaso, waxaana jiro khatar badan oo ay dadweynuhu ka muujinayaan dagaal dhaca. ila wareede ku sugan magaalada ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in go'aanka xukuumadda madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni ay ciidamo dheeraad ku geynayso oo ay ugu daabulayso magaalada Boosaaso uu horseedi karo dagaal dhaxmar ama halkaasi ka qarxa. dagaal ka dhacay toddobaadkan gudihiisa magaalada Boosaaso ayaa ahaa mid saadaalinaya maalmahan oo dhan sabab la xiriira talaabo ay qaadayso xukuumadda Deni oo ay kula wareegayso shirkadda BD la yiraahdo ee qaabilsan arrimaha ciidamada badda. BDG waa shirkad ilaa in muddo soo shaqeynaysa waxaana leh ganacsareer Puntland oo ugu tun weyn deegaanada maamulkaasi. shirkadan ayaa maamusha ciidamada la yiraahdo BNBF-ta ee Imaaraadka taageero u qaabilsan, waxaana la isku hayaa sidii arrintaasi guul looga gaari lahaa. dhinaca kale waxaa magaalada ka socdo ololo nabadeed oo ay wadaan culimada iyo waxgaradka kuwaas oo xal u waraadinaya arrintaasi. culimada iyo isimada iyo nabadoonnada gobolka Bari ayaa sheegay inay wadaan dadaalo nabadeed oo ay ku doonayaan in xal looga gaaro wax walba oo nabadda xumayn kara. gudoomiyaha madasha xisbiyada qaran ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Fahad Yaasiin ayaa Muqdisho waxay ku yeesheen kulan xasaasi ah sida ila wareedii ay xaqiijiyeen. sida xogta lagu helay kulanka ayaa ka dhacay hoyga Muqdisho ka degan yahay Sheekh Shariif oo uu taliyahanisa ugu tagay, waxaana u soo dhamaaday abaara 2 saac shir socday in muddo ah. sida xogta lagu helay waxaa kulankan looga hadlay xiisad dhawaan ka dhalatay kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya Sheekh Shariif uu sheegay si xoog ah dalka looga saaray kadib markii madaxweynayaashii hore lagu xanibay garoonka diyaaradaha magaalada Muqdisho markii labaad. xubno xog ogaal ah oo kulanka kala socday ayaa sheegay in looga hadlay xaalad deganaansho ah oo ku saabsan gudaha caasimadda, waxaana la isla soo qaaday xalka gaaridda waxyaabaha dhacay isla markaasna si loo xaliyo ayaa lagu dadaalay. wararka kulanka laga helay ayaa sheegaya inuu dhamaaday oo uu ku dhamaaday isfaham kadib markii xubnahan ay gacanta isgalsheen. wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Danjire Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay hadal ka soo yeeray dhigiisa Kenya Monique Juma taas oo sheegtay in labada madaxweyne ay ku heshiiyeen in arrinta ICJ lagu dhameeyo qaab laba dhinac ay ku heshiiyaan oo la wada aqbali karo. wasiir Cawad ayaa waxa uu ku adkeystay in Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta ay isla qaateen in kiiska badda loo daayo maxkamadda cadaaladda adduunka ee fadhigeedu yahay dalka Holland. horta anigu Soomaaliya waxay jeceshahay waa wasiir hadal kale ay ka maqasho, wasiirka dalkeedana ma maqlaan su'aalaha iyagu ay soo jeedinayaan. gabadha wasiiradda iyadu waxa ay doonto ayay ku hadli kartaa, laakiin waxaan ku cadeynayaa in wasiirka waxa ay ku hadashay waxba aysan ka jirin. madaxweynayaashu waa ay kulmeen, mana jirta arrimo bada oo ay ka hadleen. taasi anaga ku cadeynaya Soomaalidu waa inay dhageystaan wasiirkooda runtan ay ka qaataan, ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. wasiirka ayaa dhinaca kale ka meermeeray inuu si toos ah ugu jawaabo su'aal ku saabsaneed in lagu heshiiyay ama laga heshiiyay dacwadii dhawaan xukuumadda Muqdisho ay ku gudbisay Kenya ee la xiriirta doorasho ka dhacday magaalada Kismaayo oo mas'uuliyiin Kenyan ay jabiyeen xanimaad dhinaca dulmaadada tooska ay Kismaayo la saaray. hadalhayn badan ayay abuurtay hadalka wasiirka arrimaha dibadda Kenya ay ku qortay baggeeda Twitter-ka, waxaana su'aalo badan la iska weydiiyay haddaba haddii Kenya ay aqbashay dhammaan soo jeedinada Soomaaliya ahaa in dulmaadada Nairobi ay si toos ah u aadaan fiisahan laga qaato gudaha Nairobi, maxay Soomaaliya kaga badasheen? waa su'aal ilaa haatan xal loo laayahay. hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee Kenya waxay sheegtay in arrimaha badda labada wadan ay ku heshiinayaan wada hadal, taas laakiin waa uu beeniyay markii dambe wasiirka. taliyaha ciidamada dowladda Soomaaliya ee militariga gaar ahaan qaybta 22aad Cabdilcasiis Cabdullaahi Qooje ayaa sheegay in dhawaan deegaanada Galmudug uu ka bilaabanayo dagaal ka dhan ah al-shabaab kaas oo looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin labada gobol ee Mudug iyo Galgaduud. waxa uu sheegay in taliyaha in deegaanada Galmudug ay ka mid yihiin deegaanada ugu horeeya oo ay al-shabaab gacanta kaga hayaan, waxaana ciidamadu ay dhawaan bilaabi doonaan kuwa Galmudug iskaashanaya u diyaar garow degdeg ah oo dagaal ka dhanka al-shabaab ah. hadalka taliyaha dowladda federaalka Soomaaliya ee qaybta 22aad militariga Soomaaliya Cabdilcasiis Cabdullaahi Qooje ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo amniga deegaanadaas dhawaan gacanta ay gelisay dowladda federaalka Soomaaliya iyadoo ay la wareegtay. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelkan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. hagaag markaan qodobkii dibadda maxkamadda cadliga adduunka ee ICC ayaa ogolaatay in baaritaano buuxa lagu sameeyo dambiyo laga soo eedeeyay ama lagu eedeeyay dowladda Burma ee ku saabsan xasuuq loo geystay dadka Rohingya ee ku nool gobolka Rakhine.
garsoorayaasha maxkamadda ICC ayaa waxa ay shalay codsadeen oo ay gudbiyeen dacwad ogolaansho ah in lala xiriiriyo arrimo eedeemo ah oo xukuumadda Myanmar lagu eedeynayo gobol ka dhana qowmiyadda muslimiinta Rohingya. In ka badan 740,000 oo Rohingya ayaa lagu qasbay inay ka barakacaan deegaanadooda una baxsadaan gudaha dalka Bangladesh, taas oo qaramada midoobay falkaasi ku sheegtay ama ku tilmaamtay in uu ka dhigan yahay xasuuq iyo dambiyo dagaal. bishii Sebtembar sanadkii 2018 xalaaliyaha guud ee ICC Futuna Basonda ayaa loo ogolaaday in uu furto baaritaan hordhac ku socdo dowladda Myanmar iyo hogaamiye Aung San Suu Kyi, taas oo ka dambaysa xukunka xubnahaas. guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku saafmeerayaa warkii habeen ee Haga Media. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe YouTube channelka Haga Media